reer Jabuutina sidoo kale walaalo aad iyo aad u qiimo badan waaye sida madaxweynuhu sheegay horay ayaan halkan anoo madaxweynaha u imaan jiray meesha aan ka soo doonano talada ayay ahayd marka aan u baahano talo welina muxuu ahaay waa halkeedii way noo tahay weli meelaan u soo talo doonano u soo ra'yi doonano markii aan culays qabno aan ku soo cabanno oo aan maxaan ku raadaa war helaa tale helaa la yiriye aan halka aan xogta iyo warka aan ka soo doonano halkan walaalaha reer Jabuuti guud ahaan soo dhaweynta iyo marxabeynta iyo qadarinta martigelinta ka sokowde waa qofka bini aadamka ah adduunka ku nool shakhsiga ama nation hadii uu yahayba waxa uu bixiyaa ama hadiyada uu bixiyaa waxa ugu qaalisan waa naftiisa annaga dalkan iyo dadkiisa hoggaanka madaxweyne Ismaaciil naf ayaa noo huray dhiig ayaa noo daadiyay waxyaabo badan oo aad iyo aad culays badan ayaa masaalixdeena iyo sharafteena iyo karaamadeena si loo soo celiyo ma aha dhaqaalo qofku siiyay iyo ma aha qof maalin un meel ka amaanay naftiisa heen walaal kelmad saxa oo sida ay tahay u turjuman waay noola mid ma aha marka cid kale noola mid yahay dalkani ma jirto bini aadamkuna sidiisaba iskumana qadariyo iskumana ixtiraamo waxyaabaha materialka ah waxa la isku ixtiraamo waxa ugu weyn qadarinta iyo weyneynta iyo xushmada qofka uu ku hayo qof ma aha Soomaali inkastoo hal qoys ay tahay inta Soomaali ku hadashay meel kasto ay joogtaba haddana dalkan Jabuuti la yiraahdo inta Soomaali ku hadashay inta kaleba waa walaalo ku daysi mudan sida nabadda iyo harmoniga ay ku wada nool yihiin ku wada joogaan oo dawladooda iyo waxooda u ilaashanayaan waxyaabaha casharada inaan ka baran aan u baahnay ka mid tahay fursadna loo siiyay marka aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa madaxweynaha iyo guud ahaan dadka reer Jabuuti meel kastoo ay joogaanba xalay weyneyntii la weyneeyay iyo qadarintii la qadariyay iyo biladii la isiyo runtii waxay ugu reebtay xusuus gaar ah xalayna yani hurdadeeda runtii in badan oo kamid ah way maqneed waxayna u maqneed waxay ahayday wixii iyo xalay aan la kulmay iyo sidii maxaan ku raacnaa aan filaynin muxuu ahay la ii weynay ma marka qaar ku waa isweydiyaa weyneyntan ma mudantaan isdhahayo ya marka waa markale madaxweynaha u mahad celinayaa walaalaha reer Jabuuti meel kastoo ay caalamka ku nool yihiin dal iyo dibadba waa u mahad celinayaa de hadda maalin walba labadaada gacmood maalin walba mid un baad barkataay marka waa ka mahad celinaynaa sida muxuu ahaaye naxariista leh aad iyo aad ayaa u mahadsantay inaan siino saxaafaddana xilligeygii wakhtigeedii mas-uuliyaddeedii wixii ay aanan ziyaado ahayn kabadis aanan ahayn wixii loo egmaday hawl saxaafaddu inay qabato dadweynaha Soomaaliyeed iyo dadweynaha af Soomaaliga ku hadlaya oo dhan inay u tabiyaan waxa aan qabanayno socdaalkani macnihiisa su'aalo fara badan oo aan meesha la ekayna baahi loo qabo aniga ilama aha haddana qasab bay nagu tahay siyaasiyiin haddaan nahay inaan ka jawaabno su'aalo wixii ay mugdi kaga jiro dadka ku saabsan socdaalkeena socdaalka madaxweynaha iyo xaaladda geeska haddii loo baahdo waxaan annagu xaggeena Jabuuti aad nahay
si qadarin iyo xushmo leh ayaan u soo dhaweynaynaa madaxweynaha waddankiisii inuu joogana waan isleenahay inuu nala dareemayo waan hubnaa inuu galgacalna u qabo Jabuuti annaguna intaa in leeg inaan u qabno waa isagu naguma cusbo oo isagoo madaxweyne oo horena uu nala joogay waan wada shaqaynay iminkana waan wada shaqaynaynaa madaxweyne soo dhawow floorka waan kaaga kacay عندار وأنا محمد داير وأنا والله يا مقع وفي جيبوتي وأنا تدريجيا وها سؤال شهور السنة يا مدحوينها جمهورية فدرالية الصومالية وأنا جاي مدرب مدحويني هنا سؤال شهور الصحوي وإذا أديو والألقى مدحوينها جيبوتي وإذا وضع حضري وضع حضري هاي السعودية كمجددة وتبدأ حاسة كصيف بحوم حاسة يعني مدحوينها جمهورية جيبوتي والناصر محمد أنا ما سنتهاي ده سيدا عن هذا الكيجي يرى قبنا عن كل شيء ماشان محوها جيبوتي ده هو وحى شيء وأصل ترددنا وأصل رأي دوننا مركا عن رأي سياسات أما رأي أمني أما رأي محن كرا ديبودس كدل كان كهذا لأنه دولتنا الصومالية جمهورية السدحات الصومالية هالكي أي كعورتي وكبلابتي أيام هالكنا تاسوا قضب كلا مدحون إسماعيل وحبضا أيان ساكي عن كوضع هذا oo labada masaalixda labada dal ay ugu horeeyaan uguna waaweeyeen iyo taxadiyaadka ama challengeska gobolkeena gobol ahaan noo haysto sidii aan hal dhinac uga soo wada jeesan lahayn oo ra'yi uga qabal lahayn hadii ay tahay arrimaha amniga iyo hadii ay tahay isku milanka ama isdhaxgalka dhaqaalaha iyo arrimihiisa iyo hay'adaha regionalka ay naga dhaxeeyo sadooda sidii aan waxay lahayn inahaas aan isku soo qaadnay oo dhan waa isku mawaaqif awalna waaban ka ahayn laakiin isxusuusin iyo cusboonaysiin bay ahayd mooyaane maraan ku kala ra'yi duwaneen amuraas oo dhan ma jirin marka walaalkay inahaas aan ka wada hadalnay isku meel ayaan ka wada taaganahay amaasanta السلام عليكم. السلام. معي وعبدي وحنا هاي وياها محتوية مدن المحتوية مرة وصول دبوه ودن كعب ما صدق. سؤال شو وحويا مدن المحتوية محاد كنت مال لهاي حق عمات مرة يصير حريق الله مضر وما يخلي جبوتي. amaasanta Jabuuti iyo Soomaaliya taariikh waxa la yiraahdaa dadka Soomaalida xigmad waxa jirta tiraado waxa naga dhaxeeyo waxaan birina goyn biyana aanay meeyrin marka annaga iyo Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya Jamhuuriyadda Jabuuti waxa ka dhaxeeya xiriirka ka dhaxeeyo waa sida waligi hadee caalamka aan ku noolnahay up and down kor iyo hoos waa iska jiraan oo marka qaarkood afkaar iyo waxyaabo un kala duwanaa karta way dhici kartaa laakiin islahaanshaha iyo sulxawshada iyo iska muxuu ahay waxa Jabuuti Soomaaliya waa sidaa oo waa biyana ma mayraan birina ma gooyso waxa ka dhaxeeya marka waxa naga dhaxeeya meeshaas ay joogaan waxa kale waa challengeska ama taxadiyaadka soo baxaya sidee aan u address kareenayo aan u wada wajahnaa waayo wixii laga hadlaa mooyaane saaxiibtinimo ama muxuu ahaay wax kale oo dheer oo qoto dheer oo laga hadlaa ma jira way jirtaa already